Mahamu? How can you know? maanta waxaanu tegaynaa Canton Tower. السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا مرلبات channelka محمود جايو. meesha la kala hadlayo waa magaalada Guangzhou ee dalka China. Sidaan horeba ku sheegnay inaan idin soo bandhigi doono muuqaalo xiiseeya oo ku saabsan dalkan aynu joogno ee China. Maanta waxa weeye video ku horeysa wada xasuustaan inaan la wadaagnay suuq kamid ah suuqyada ku yaala dalkan China gaar ahaan magaalada Foshan oo ah suuqii furniture. maanta intaan lagu gudagelin suuqyada ku yaala magaalada Guangzhou ee aan joogo waxaan jeclaystay marka ku horeysa inaan insha Allah aniga laftarkeyga hore maan gelin waan booqday laakiin maan gelin runtii bal maanta aynu booqano aynu galno mid kamid ah daaraha ugu dheer caalamka waana daarta saddexaad ee ugu dheer caalamka waa daarta Canton Tower. aniga idinkuba insha Allah maanta aan waqtigan qaadano Canton Tower. Let's go. Kusoo dhawaada vlog cusub. bal maanta inta aynan u gelin suuqyada magaalada Guangzhou aynu booqano mid kamid ah macaalimka magaaladani leeyahay. maanta waxaanu tegaynaa mid kamid ah fooqaqa adduunka ugu dheer. waa fooqa la yiraahdo Canton Tower oo ah mid kamid ah sumadaha magaaladan Guangzhou leedahay. ahna fooqa saddexaad ee adduunka ugu dheer marka laga imaado Burj Khalifa oo ku yaala magaalada Dubai ee dalka UAE iyo Shanghai Tower oo ku yaala isla dalkan China. inkastoo aan in muddo degnaa magaalada Guangzhou laakiin se weligay runtii ma gelin gudaheeda. bal maanta aynu wada explore kareen runtii markaad goobaha dalxiiska aad timaado magaalooyinka waaweyn waxaa jirta dad badan oo ka kala yimaada Chinese kama sheegay oo ka kala yimaada meelo aad u badan tuulooyin ha noqoto cities ka noqoto oo soo booqasho taga magaalooyinka waaweyn. marka halka ka marayaan weligood yaa loo dad ajnabi ah haddaan madow wuxuu doonaha noqdo weligood ma arag. markaan iskugu imanno kale goobahan oo kale runtii waxay aad u jeclaysanay kolba kula hadlaan sawir kula galaan qaar baba jirkaaga taabanaya mawti oo inuu madow soo raacayo kale eegaya. barigoor waan la yaabi jiray laakiin marka waan iskala qabsaday runtii dadka Chinese-ka runtii dad iska friendly ah. Canton Tower wuxuu ku yaalaa bartanka magaalada Guangzhou. dhererka towerkani waa 600 mitir. dadka deegaanka ee u dhashay magaalada Guangzhou waxay u yaqaanaan towerkan Slim West ama haddaan Soomaali ahaan ku sheegnaba dhaxyar iyagoo ka tixraacay naqshadda ama qaab dhismeedka towerkani u samaysan yahay. fooqan waxaa si rasmi ah loo daahfuray 2010 xilligaas oo magaalada Guangzhou lagu qabtay Asian Games. towerkan waxaa ku yaala waxyaabo badan oo ku record garaysan World Guinness Record. waxaa kamid ah Ferris wheel oo ku yaala fooqa xaggiisa sare markuu dherer ahaan marayo 440 mitir. waana Ferris wheel-ka meesha ugu sarreysa adduunka ku yaala. habeenkii view waa mid aad ku soo jiidanaya bal aanu yar daawano. intaas dhexyar maanta hanaga eekaato waynu u soo laabanaa hadduu alla idmo mar kale. waa idin salaamaya.
فيديوغا مانتا كانتون تاور intaasoo noogu eegaya magaalada Guangzhou maanta waxaan ku bilownay video inaan tagno oo soo eegno daarteedii ugu dheereed waxaan oo harsan suuqyaday waxaan oo harsan noloshii China guud ahaan haday tahay magaalada Guangzhou aan deganahay iyo magaalooyinka kale insha Allah si aad ula socotaan video soo socda ku xirnaada baraha bulshada waa mahadsantiin